مثلا waxa ugu badan aynu sameeynaa soo salaad ma salaadu waa iimaan amaliya salaadu waa qofka bini aadamka oo aqbalay ilaahi subhanahu wa ta'ala amartiisa inuu fuliyo qofka bini aadamka meesha kuugu sarreysay aad ilaalisay subaxii wajigaaga ma jeclid subaxii isagoo xabajale ama uska galaama in cid ku aragto soo fool dhaqataa wad soo hagaajisaa reer magaalka damanada kariimiyo waxba u soo marsada adigoo dhalaalaya soo baxda laakiin waxaad ogashay wajiga caynkaas iyo halka kabaa la dhigay inaad dhigto sujuudu waa maxay soma halka dhaga ku haysay inaad madaxa saartid dad min waxa weeyaan ilaahay waa isu ka dhiibay baad leedahay ilaahu waxaan aqbalay wixii aad fartay inaan yeelo ninka sidaa yeelay ee halku kabaha saaray ama cagaha dhigayay cagtiisa halku dhigayay aqbalay inuu fooda dhigo macnaha ka dambeeya waxa weeyaan ninkan wuxuu aqbalay totally inuu isdhiibo wa total submission qofkani waxa weeyaan wuxuu aqbalay inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala servant u noqdo abdun min abidillahi inuu soo baxo haddaad macnaha fahamto oo sidaa u agarato oo salaada marka tukanaysa aadaada ihdina siraatal mustaqim siraatal ladina an'amta alayhim ilaahay uu jidka toosan ugu hanuuni jidkii nabiyadu mareenna mari waad leedahay غير المغضوب عليهم ولا الضالين ilaahu jidka nasaara iyo yahuudi martay hana marinina aad leedahay oo haddana marka dibadda u baxdo laga kari waayo jidka yahuudiya nasaara inuu raacna ka war haday iminka halkan marka taagnayd maalin kasta 17 ragcadood ba waad akhridaa waajibka hadaan sunnaba tukan 17 ka ba ilaahay baad baraysaa fooda dhulka ku haysaa oo waxaad leedahay ilaahu jidkii nabiyadana ay mari jidka gaaladu martayna hay marinin baad leedahay albaabka masaajidka markaad ka baxdana jidkooda aad qaadaysaa waxba qaldan marka soo maaha waxba qaldan ama salaadan baan la fahmin ama jidkan baa loo haystaa bada jidkii muslimka inuu yahay waxba qaldan siba wax soo idaarsan ولذلك إلهي القرآن كوحكو تلماميا تنهى عن الفحشاء والمنكر با إلهي صلاة فحشك يا منكر كي دادك كالريبتا حماها يا زنادة يا وحنا ودنبا الريبتا وهي قفك صلاة سيدة تنو فهمي إفواد دولك كوهيا possible ماها مركا وبحو إنو هدنا حاجة كلك هو إدارة طريقي أما صلاة دي نفهمين صلاة دان مركا صلاة دي أهين صلاة دا خلل وكتشرة صلاة دان سيدي في عريدة للربي الله ودين